munaasibadan lagu sagootinayay lix sarkaal oo ka tirsan ciidamada militariga ee Soomaaliland oo deeq waxbarasho ka helay Jamhuuriyadda Shiinaha ee Taiwan ayaa lagu qabtay xarunta safaaradda dawladda Taiwan ay ku leedahay magaalada Hargeysa waxaana goobjoog ka ahaa taliyaha ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Sarreeye Gaassan Nuux Ismaaciil Taani wakiilka dawladda Taiwan u fadhiya Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale taliyaha ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Sarreeye Gaassan Nuux Ismaaciil Taani oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay hoostana ka xariiqay isagoo ku hadlaya magaca ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee militariga inuu aad ugu faraxsan yahay inuu goobjoog ka aado munaasibadan. On behalf of Somaliland Army, I would like to express my sincere gratitude to Taiwan Embassy in Somaliland. I would also like to thank you waxaana uu sheegay inay tani muujinayso sida daacadnimada leh ee safaradda Taiwan ee Soomaaliland ay u sii wado ugana go'an tahay taageeridda walaaltinimo iyo saaxiibtinimo ee ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale wada shaqaynta iyo isku xidhka dawladaha Soomaaliland iyo Taiwan iyo sidii labada ciidan ay u wada wadaag lahaayeen aqoomaha kala duwan ee ay leeyihiin waxa uu ku hambaliyay ugana mahadnaqay mar kale sida ay u barbar taagan yihiin ciidanka Soomaaliland dawladda Taiwan gaar ahaan siinta deeqaha waxbarasho ee dhinaca ciidamada taliyo waxa uu ku dheeraaday cilaaqaadka cudoon ee u dhaxeeya dawladaha Taiwan iyo Soomaaliland iyo sida ay iskaga kaashan lahaayeen una wadaagi lahaayeen arrimaha militariga. The first round was 3, the second round is 6, maybe the third round will be more than that. taliyaha oo sii watay hadalkiisa ayaa waxa uu sheegay in lix sarkaal oo ka mid ah ciidamada qaranka Soomaaliland ay deeq waxbarasho ugu baxayaan dalka Taiwan laba ka mid ah ay yihiin hablo kuwaasoo soo baran doona ayuu culumta kala duwan ee ciidamada waxa uu dardaaran iyo hoga tusaaleynba u soo jeediyay saraakiishaasi kaasoo ku booriyay in muddada ay waxbaranayaan ay dadaalka bilaabaan maankana ay ku hayaan sida aqoontaasi ay soo kororsanayaan ay ugu soo celin lahaayeen ciidamada kale ee iska helin wakiilka Jamhuuriyadda Shiinaha ee Taiwan u fadhiya Soomaaliland Ambassador Alen oo isna madashaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay maanta inuu martigeliyo munaasabadan deeqda waxbarasho ee lagu sagootinayo lixdan sarkaal ee ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland. It is delighted to host today's military scholarship ceremony on behalf of the government of ROC, Taiwan, that is the Republic of China, Taiwan. I would like to congratulate the 2024 6th Somaliland Taiwan Military Scholarship awardees. Congratulations, Hambadio, Hambadio, Hambadio. waxa uu tilmaamay in isagoo ku hadlaya magaca dawladda Jamhuuriyadda Shiinaha ee Taiwan uu aad ugu faraxsan yahay isla markaana jecel yahay inuu hambaliyo lixdaasi sarkaal ee deeqda waxbarashada helay waxa kale oo uu iftiimiyay in isagoo ka jawaabaya baahiyaha amni ee Soomaaliland ay sii wadayaan dadaalka isla markaana sanadkii hore 2023 ay fursad waxbarasho ay siiyeen saddex sarkaal oo wax u soo baranayay ciidamada kala duwan ee Soomaaliland. This year, we not only double the numbers of the awardees to 6, but also provide scholarship for the Somaliland high school graduate to study 4-year academic military school in Taiwan. safiirku waxa uu cadeeyay in sanadkan aanay la bilaabin oo kaliya balse ay sii wadaan taageeridda deeqaha waxbarasho ee dhinaca ciidamada iyo sidii la iskaga kaashan lahaa loona xoojin lahaa xaaladda nabadgelyo ee geeska Afrika. safiirka ayaa farxad ku tilmaamay in lixdan sarkaal ay laba ka mid ay yihiin haween taasina ay ka turjumayso sida ay muhiimka u tahay in kor loo qaado aqoonta kala duwan ee ciidamada gaar ahaan hablaha ku jira ciidamada kala duwan ee Soomaaliland. Somaliland will move forward to peace, stability, and prosperity. waxa kale oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay sarkaal ku hadlayay lixda sarkaal ee deeqda waxbarasho ugu baxay dalka Taiwan kaasoo ka mahad celiyay deeqdaasi waxbarasho ee heleen